السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامجka kan isaga ah ee ku magacaaban aayaha iyo mustaqbalka maakhir deegaamada maakhir. barnaamijka kan waa mid si gaar ah ugu socda bulshada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaamada maakhir ee reerka ku magacaaban Warsangeli. guud ahaana ah barnaamij ujeeda guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. sanadkii tagay oo 2023 ayaa waxa ka qabsoomay shirkii lagu magacaabay maakhir ee North America magaalada Minneapolis ee State of Minnesota dalka Mareykanka. arrinkaas oo isugu yimaadeen bulsho badan oo deegaankaas isaga ah ee maakhir ka soo jeeda ayna ka soo qayb galeen oo ka jeediyeen warqado kala duwan aqoonyahan ka soo jeeda deegaanka maakhir ama beesha Warsangeli. run ahaantii shirkaas isaga ah waxaan kaga faallooday laba tirsi oo hore oo aan channelkan isaga ah ku soo tabiyey oo ku saabsanaa shirkaas isaga ah. waxaana hor istaagay oo farta ku fiiqay aada ugu goday qoraahdii aqoonyahan maxamuud cali geeldoon ee ahayd in deegaanku u baahan yahay hoggaan siyaasadeed. baahida ugu weyn ee ka jirta deegaanka maakhir beeshaas iyada ee tilmaamay Warsangeli haysataa waa maqnaanshaha hoggaanka siyaasadeed. saan horena afka ugu dhiftay oo ahayd inaanay waxba ku qabsoomeyn haba yaraatee haddaanad lahayn hoggaan siyaasadeed. arrinkii isaga ahaana waxaad moodaa inuu halkiisii yaal oo weli halkiisii taagan yahay oo laga warwareegayo helidda iyo askumidda hoggaankaas siyaasadeed. hadalladaydiina ay ka mid ahayd dan idinkuma jirto inaad ka mid noqotaan maamulka ku magacaaban Puntland. kaasaa uu yahay maamulkaasu mid aan haqabtireen baahidiina si gaar ana u dabooleyn, una yahay arrinkaasu arrin aydinaan kaga bixi karin aayaha Soomaaliyeed ee taagan iyo kan soo socdaba. marka la akhristo waaqaca jirana arrinkaas isaga ah laga akhrisan karo. balse maanta waxaan hor istaagayaa dhibta ay leedahay maqnaanshaha hoggaanka siyaasadeed oo dhacday oo taagan ay muujinayso lagana akhrisan karo. taasoo ah arrinkii mashaariicda dhaqaale ama horumarineed ee World bankiga adduunka ugu talagalay dalka Soomaaliya, iyadoo uu ku bixiyey laguna qaybinayo lacag tirsigeedu gaadhayo $148 milyan oo dollar. loona qaybiyey lacagtaas iyada ah deegaamada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya guud ahaan lagu daro deegaanka Soomaali diidka ah ee saldhiggiisu yahay magaalada Hargeysa. lacagtaas iyada ah ee dhan
tirsigeedu 148 milyan. si toosa waxaa ugu magacaaban 2 milyan oo dollar deegaanka maakhir ee warsangeli. 2 milyan oo ku magacaaban gaar ahaan magaalada ama degmada Badhan, iyadoo ay beeshaasuna degto degmooyin kala duwan oo ay ka mid tahay degmada Badhan iyo Laasqoray iyo Dhahar iyo Ceergaabo. balse degmadii Ceergaabo lafteeda ee beeshu deganeed way tahay beelaha ugu deegaanka badan degmadaas iyada ah lafteeda. waxaa loo qoondeeyey 5 milyan oo dollar, balse 5 milyan oo dollar waa mid la raacsiiyey maamulka cusub ee la yagleelay ee Khaatumo. iyadoo bulshada maakhir ee warsangeli degaan ahaan kaga badan yihiin bulshada dhulbahante degmada Ceergaabo. 5 milyan oo dollar ee loo qoondeeyey degmada Ceergaabo waa mid hoos tegaysa oo ku magacaaban oo ku xusan maamulka Khaatumo. waa guul aan taageersanahay in 27 milyan oo dollar loo qoondeeyey loo askumay maamulka Khaatumo oo loo qaybiyey degmooyin ay ka mid yihiin Laascaanood, Taleex, Buuhoodle iyo Ceergaabo. balse halkaas ka milicso haddaad tahay muwaadin Soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanka maakhir oo ka tirsan beesha warsangeli, wanaagga uu leeyahay madax bannaanidu iyo inaad leedahay maamulkaaga gaarka ah iyo hoggaanka siyaasadeed oo ah arrinkaa keenay in loo qoondeeyo maamulka Khaatumo lacag gaadhaysa 27 milyan oo dollar. isla mar ahaantaasna degmadaadii Ceergaabo dariska kula ahayd beesha dhulbahante iyo beelo kale oo Soomaaliyeed ay ka mid yihiin beelaha Habar Jeclo iyo Habar Yoonis la hoosgeeyey maamulka Khaatumo. halka dhanka kale maamulkii aada isa siisay oo isxigsiisay haddaad tahay qof ka soo jeeda reer maakhir oo ah maamulkaasu maamulka Puntland, loo qoondeeyey lacagyow degmooyinka Boosaaso degaan waliba ku tahay iyo degmada Garowe iyo Qardho, iyo lacagta loo qoondeeyey sida gaarka ah xeebta ama deegaanka Garacad oo hoostaga degmada Gaalkacyo ama Jariban. maamulkii Puntland aada isa siiseen oo aad ka tirsaneedeen waxaa idinka soo gaadhay 2 milyan oo dollar. degaan aad ka tirsaneedeen waxaa la hoosgeeyey maamulka Khaatumo kaasoo ah Ceergaabo, loona qoondeeyey 5 milyan oo dollar. gunaanadkiina go-aanka iyo aayahaas ilaa heer dowlad federaal iyo bankiga adduunka loo gartay in degmada Ceergaabo ay hoos tagto maamulka Khaatumo. taasina waa guul u soo hoyatay maamulka Khaatumo
uuna u qalmo maamulkaas isaga ah aanu ku kasban dheeldheel balse dhiig loo huray oo dhiiggiina haddaad tihiin reer maakhirna uu ka mid ahaa balse farqiga labada dhiig u dhaxeeya uu yahay dhiigna waa dhiig yeeshay oo uu hogarbaxay hoggaan siyaasadeed dhiigna waa dhiig aan lahayn oo ka caagan helidda hoggaan siyaasadeed aan u soo noqdo mar labaad faa'iidada iyo qiimaha uu leeyahay markaad leedahay hoggaan siyaasadeed waa muuqaalkaas isaga ee tilmaama saan horeba uu yiri haddana aan carabka ugu goodinayo haddaanad lahayn hoggaan siyaasadeed meelaad gaari kartaa ma jirto ayaa ku qabsoomaya ama ku hirgalayaa ma jirto danahaaga waa lagugu kor qorayaa waa lagugu dul shaxayaa adigiyo nool ayaad aasmaysaa lagu aasayaa saas awgeed aada uga baxdaan waaqacaas isaga ah lama huraan waxaa inaad yeelataan hoggaan siyaasadeed anigoo haddana aragtidayda gaarka markaan ka hadlo khaalid xasan yuusuf ahaan ah qof calmaani ah oo aan ogoleen in maamul siyaasadeed uu ku dhisnaado muuqaal qabali balse waataan ku taageeray maamulka khaatumo idinkuna aan idinku boorinayo taasoo ay tahay muuqaalka keliya ee aada marxaladan dagaalka sokeeye iyo burburka soomaaliya ka jira iyo musuq maasaqa kaga bixi kartaan iyadoo aanay jirin fikir siyaasadeed axsaab siyaasadeed oo wax lagu qaybsado iyo degaanba uu arrinku qabiil yahay saas awgeed waxaa lama huraan ah idin hortaal inaad yeelataan hoggaan siyaasadeed daawada dhegayste waa anigoo ah khaalid xasan yuusuf intaan barnaamijkan oo kan la mida isugu iman doono iga guddoomaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu